soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan waxaad ku bari doontaa qaabka transactionada aad sameyso perfect money-ga lacagtoo kaa goosto sidee ugu soo ceshan kartaa ama lacag walba tusaale lacag markii aad dirayso perfect money lacag kaa jirta laakiin waxaan ku hayaa taasi way ka duwan tahay oo lacag markuu kaa jirto isla lacagtu wuxuu kuu soo celi doonaa bil kadib waxaad tagaysaa settingiga perfect money account-kaaga kadib halkan kuu muuqato ama aan calaamada kuu saaray accept monthly interest aad waxaa saari doontaa tick oo la micno ah transactionada aad sameeya interesteeda ii soo celi si bila ah. Okay, haatan imaano perfect money account-kayga dhanka application-ka ayaan ka galay waan kiciyay sidaad u jeedid account-kayga intaas oo balanceedkiisa maraya marka operation history-ga marka aad gasho waxa kuu soo muuqanaya ama number 1 ka ah waa monthly interest payment oo la micno ah bisha koodeeda ay ii soo dhacday $32 oo la micno ah lacagta ee bishaas iga wada jaranayeen lacag walba aan diro ama transaction walba aan sameeyo. sidoo kale waxaan kaa iloobay lacagta ugu yar ee loo baahan yahay inaad dhigato akoonkaaga ku shubato waa $1 inay noqoto $1 marka aad ku shubato $1 lacag walba aad ka dirto soo perfect money-ga sentiyaal kaama jarato isla bishii waxaa lagu soo celi doonaa lacagtii lagaa jartay laba jibaarkeeda oo la micno ah 4% sababtoo ah perfect money-ga wuxuu jartaa 2% in ka yar laakiin perfect money wuxuu ku sii doontaa si bilaa 4%. waxaan rajeynaa in yar ha ugu yaraatay inaad ka fahantay muuqaalkani waa mahadsan tahay muuqaalka like inoo saar sidoo kaleetana janaalka subscribe inoo saar waa isku soo laabanay ayaantan waan kala maqnayn in ka badan ama in ka yar bil iyo xoogaa insha allah waxaan rajeynaa muuqaaladeena inay dib u bilaaban doonaan sidoo kaleetana cashiro xiiso leh oo ku saabsan qaabka online-ka lacagta looga sameeyo iyo waxyaabo badan kaa qarsoon inaan kuu soo bandhigo aan ku tuso.